هذا النوع إن أنه ما نتحكم في قدومي إنه قلب لو نقول ترى قلبي سبورس كنا دقيقة يعرفون قلب كاس واحد قلب قيمة وحين اللي أفر دريس سدح قدوم كبيه شروا ودود مع وقته وأهرن أرض وفر بريهن تنبي وحس قصة وداعية قلب هذا ينسوق على سبورس كلا وترى قلبي كنا هانتي وأهرن دي مهمة دي دقار كالي سبورتسكو مركا سبورتسكو waxa qura lagu dagaalan karo waxyaamaha xun ee dhibaatiin kara dhalinyarada haday tahay qabyaalad haday tahay balwado haday tahay tahriibo haday tahay dhibaatooyin kala fara badan waxa lagu dagaalan karo weeye arrimaha noocan oo kala ah ee dhalinyarada loo keenayana waa arrimaha qayb weyn ka qaadan kara dhalinyarada waxa loo baahan yahay in waxa loo keenayo loogu talagalay saa loogu dhaarkinayo in iyaguna say tahay ay uga faa'iideystaan oo waxyaabaha laga fogeynayo loogu talagalay ka fogaadaan iyaguna ka fogaadaan bay iyaguna tahay dhalinyarada waxa weeyaan waxan dad baa lacag soo geliyo idinku talagalay inaa sports haan noqotaan oo waxa ka fogaataan marka haddii wixii sidii loogu talagalay looga faa'iideysan waayo qofkii keenana qasaare ku tahay idinkiina qasaare idinku tahay marka waxa laga codsan dhalinyarada inay waxan ay say tahay uga faa'iideystaan oo waxyaabaha la doonayo inay ka fogaadaan waxaan aad ugu hadleeyay maxaa fatix oo hadalin dhalinyarada degmada oo xaflada dhalinyarada ku degmada iskaran maayeen waxaan filayaa 12 sano meelaha simigaal ku dhacay qalabkan bulshada wixii waxaan sadad weey tagayso dhalinyarada isu tagaysaan laba farmarin hortii waxaan sidoo kale yimid adoo wax ku soo dhalinyarada wax ka farxiso adigiis walaalkeena الفين هيك الحي ما تجلس مقالة هذه دلنيردي كادم بيسي وحيكون حسوستان جارسي محتاج تحول أيام أضياء ومحط نقية محمد سجى ودق وقرتين وسووا وجبات كيسي لكن عندك اللي على الدار ما يا دون سنة كفاية يستان ودون واجب كذا قصلان وحوي ولا تقدر سكسنا سنة طلع معنا هكذا بيوم حي فائدوين بدن لا كتير شيلبت كسي دنبيو انت حتى يوروب كومغان marka yarkan caawa TV ka daawadaan iyana sidoo kale way ku soo dayanayaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa marka inaan sii kordhino dadaalkeeni oo aan kor u qaadno cidda qurba sportska maamulka degmada xildhibaanada ganacsatada aynu garoonkeeni sidii uu sheegay gudoomiyaha sportsku aan garoonkeeni dhisano waliba tamar ku dhisano oo aan dad xadin doonayno jibino marka ولكن أنا كسين إنه كانوا قلب كسبورتس كان عادي أبغى نقول مهاجلينا إذن كانوا واحد نتقصنا إن هنا سووا قرتين أو قرتين هيك الدنيا عالمية قولة تقول كلا قولة ترتمل هذه إن نكرنو ما دام إنه حوس السجون نبي قرنيه أو إنه ما أنت إنه هالكم دقيق اللي يكون بدوسين أيوه أو قصة تمرعي أو كاني أو حوق يسكسوا يبيجي إنك جاي بقربها يلا يراقو محمد فاتح أول ديرية فاتح أول ديرية وقرنا صار وحويا أن تصم ولا فاتح ما يقاني هذا الله وحويا وهلية دي قرنا هذا السمال لا نسوا هالجميل كنا نفواي وكل إنسان سو يربع سكانوا حلال النهاية سجيا به والدين تيبا إلى هاي يوم حريص وحن كروه نتي عادي عادي بوفينيا وعد كستا oo la mid ahayd la facahayd keligi ma ahayn in badan oo qurba jooga hadii rajoogta iska daa inta ka yar wax keena way ku yiri waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hadduu maanta xasuusan yahay degmadiisii halkii dhiigii dadkii uu isaga dhalay uu ku baxay ay tahay uu inta xasuusan yahay oo uu soo qaaday oo isii maanta mar hadaad tagto degmadii maxaad geeysaa
waxaan leenahay wax badan oo uu hayana sidaas uu inuu keeni lahaa waxaan leenahay halkii uu ka soo saaray ilaahay wax san ha u bedelo waxaan kaloo leenahay dhalinta lamida ee la filka ah ee deegaanka imanaysa ama kuwa weyn ee aan nasiib u helin inay cimaamadna kabanaha sharabaadna ha noqotay inay degmadooda ku soo xusaan waxaan leenahay ku baraaruga oo degmadu Soomaalidu waxay ku maahmaadaa waa deeq yar yahay dunya lagama haro waa dir yahay dagaal lagama hareen degmada wixii kasta loo keena hadii haween la caawiyo iyo hadii dhalinyaro la caawiyo iyo hadii cuqaal la caawiyo iyo hadii maamul la caawiyo mid waliba halka uu ka soo galo waa waxtar waxa laga yaabaa qaarina ay la qajilaan inta nin ka badan oo ilaadan maxad geynaysa hungada oo de qof aas salaanteero waxba ku sidii waxba kuma tarin laakiin qofka hadduu ku yiraahdo war dhalintii baan kubadu sidaa waa waxtar waxaan leenahay oo inanka aan ugu ducaynaynaa degmanimada xustay oo deeqda keentay deeqdaada wax ka badan wadna waa ay doontaa insha Allah waan kugu ducaynaynaa halkii aad ka soo saartay wax roon Allah kugu bedelo waxaan leenahay hadeyn halka ka wad wacyigelin gee waxa laga yaabaa dhalinta adiga kula mid inaanay wax badan bixin laakiin ka dhaadhici waxa ay bixiyaan inay wax tartahay waxaan kaloo dhalinta adiga kula filahay dawladda joogta ka codsanayna ama aan u direynaa baaq ugu diraya waxa weeyaan odayga iyo habartu waxa laga yaabaa inay qaaraamada kale ka qayb galaan mid wada wax looga qaado mid hadii kale wax kale looga qaado dhalinta keer ciidan weyn adiga kula fil ah waxaad naga gaarsiisaa idinka waxaanu idinku qaybinay garoonka ayna dhistaan oo annaguna haddaanu ka maamulnahay haddaanu shacab nahay haddaanu dhalinta nahayba aanu qayb wax ka qaadan doono laakiin idinku ameel goosataan oo cid waliba ay meel tilmaansato sida aad u soo tilmaansatay maanta inaad isboortiga ku keento taana runtii waa ku faraynaa maxamed camilow intana maqlaysa ama daawanaysa ama dhageysanayna waa faraynaa in dhalinta isaga iyo wixii la mid ah ama la fili ay ku deedaan oo garoonkana way dhisi karaan wax u ururiyaan oo marka ay ka muuqdaan oo la yiraahdo garoonka dhalintu dhistay taasna runtii maxamed cawil baan faranaynaa waxaan leenahay oo kale mar walba deebuhu way iska imanayaan waxa la rabaa jiritaanka garoonka iyo jiritaanka dhalinyarada iyo jiritaanka tiimanku intuba inay waaraan baa loo baahan yahay sida hadii la wadisan tihiin waa u dhisnaata mar walba hadda waxa la TV-ga la idinku yeeraya mar walba la idinka duubaya waxa la doonayaa jiritaanka isboortiga ceelaf weyn in la arko inuu jiro هذا محمد عبد الوسيم محمد فاتح وكوري تكرر أنا جوان كوري تلا محمد سهل لكن وحنا نقول إنكم عدي ولا تجي لها يعدي وكنا قلها يعدي كلام وحش يجي لها ها أركضتك أباهن وحلا ترى هذا تاين قرن لوريس هذا تاين لوجيو سكوا كلام برارجات وأنا لمودي إنه عد جارة وسيدي أما عد جارة كحسي أما قبيل جارة marka runtii aan hadalka kaga tagaya inaguna doorka aan leenahay waynu dadka soo jiiday hadii doorka aan leenahay waxa kamid ah tan in hadda taagan qofku haduu garan inoo keeno garanka inaan xayaysiino oo kor u qaado buu qofku inaga midayay isagu inaga ma codsanayna hadda TV u duubo laakiin inaga codsanay TV la duubo qalabka lagu kala guddoonto ardadu aragto isboortiga oo dhan arko waayo maxay ugu qoys rabeynaa qofka aan waxba keenin inuu qajiro waayo dhowr iyo 10 mar hadda ka tirinaya hadaan 20 magaalay inta qurba joogto isaga ka wada weyn jeenil heerkiisa gaar wuxuu keenay garan waayo laakiin inta nin qaranimo hadda wax loo keenay maayo aan isaga ahay waxaan leenahay marka kaana waa laga qajirsiinaya si aan maalinta isagoo faramaran inoogu iman isagana waxay xus u tahay war wixii aan qaaday waxaan u geeyay dadka alle isagana taas weeye maamuus buu mudan yahay aabe iyo hooyo iyo walaalba way idinka soo uu ka sokeeya qofka qaranimada wax ku xusaa إنما حلنا تذكر هاي كسرنا وسيرك وحيدين كان وسيرة هاي كسرنا هذا دليل هذا وحيدين كان دليل هذا هاي كسرنا هذا أباها وحيدين كان أبايا شكل هاي كده وهذا سيدا ساينا جاينا وبلنا ساسا نقول تدار منا وحنا كان قم هذا النية محمد فاتح أقول أو نوع كلمات هذه تنقالقة ومستحدثة وقت يمر بسكتيني أضبط مكالمة هذا النية تجمعان محمد فاتح أضبط نقوم هالسنتاي وأنا كاير داير أجرتي هذا دقمدي سياريسو دايرتي بالهدية غالية ويكفر هذا وجد هذا بقوم هالسياد بنقوم هذا اليوم وأنا كان دليل قصة كذينية شاليه درع الفين
ee jirta dibadaha ama Yurub ha ahaato Ameerika ha ahaato Australia ha ahaato Asia ha ahaato waxay ka baaqsadeen jaaliyadaasi doorkii ay ku lahaayeen degmada tan iyo intii aan joognay maamulka degmada waa deeqdii koowaad ee jaaliyada naga soo gaadha aad baan ugu mahadsanyahay Maxamed Faatax Awil aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan mahad gaar u celinayaa maamulka degmada iyo kuwa sportska waliba waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha sportska ee degmada Ceelafweyn mudane Maxamed Sahal Cali oo runtii muujiyay isbedel horumarneed intii muddadii koobneed ee xilka hayay waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa labada warbaahineed ee Home Cable iyo Somaliland National TV oo runtii bulshada lagu soo tiriya warar ku salaysan xaqiiqada qalabkan ciyaareed waxaan ugu deeqayaa degmada sportska ee degmada Ceelafweyn oo aan doonayo in ay bulshadu isdhex gasho kagana waantoobaan waxyaabaha xunxun sida tahriibta iyo qabyaaladda waxaan halkan ka soo jeedinayaa baaq ku aadan qurba jooga reer Ceelafweyn rag iyo dumarba oo aan ugu baaqayo inay ka shaqeeyaan danaha guud ee bulshada sameeyaana urur sharci leh constitution ku dhaqmo si degmadu ay horumar xagga sportska samaysato ama caafimaadka waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha u baahan tahay waxaan kaloo waqtigan qaaliga ah ka faa'iideysanayaa kadib markii aan arkay wadadii gobolka Sanaag ee halbowlaha ahayd jamhuuriyadda Somaliland in ay si fiican u socoto laakiinse nasiib xumo bulshadii reer Ceelafweyn ee ballan qaaday in ay deeq kala duwan ugu deeqayaan wadada aanay fulinin iyagana waxaan ugu baaqayaa in ay hadalka ay bulshada u sheegeen ama ay noo soo gudbiyeen inay wadada ugu deeqayaan ay kaga rumeeyaan oo ay hadalkooda saan noqon mid hadal ah oo ficil action noqdo oo ay bixiyaan waxay baaqaan jazakallah waa mahadsantiin sida sharafta leh ee wanaagsan ee noo dhageysteen waxaan ka hadlayaa maanta qalabkan soo gaadhay degmada ee uu keenay Maxamed Awil Faatax oo ah wiil dhalinyaro oo ka mid ah sportskii degmada hore haddana ah qurba joog waxaan xusi karaa inuu yahay kii ugu horreeyay ee degmada la keeno ama cid qurba joog ay noo keento waxaana maqan ilaa 2,000 xataa dhalinyartii sportiga ka ciyaari jirtay garoonka ka mid ah oo weli qof ka mid inaana ku soo gaarsiin horta ugu horreyntii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Maxamed Awil markuu gartay inuu degmadii keeno qalab sports waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinyar aad u fara badan oo xataa ay ka mid yihiin xulkii degmada qaar ka mid kumanaan ka mid ay maqan yihiin inay soo xusaan degmada qurba joogta degmada Ceelafweyn waxaan ka codsanayaa inay degmada soo xusaan agabka iyo garoonka si kastaba ha noqotee waxaan ka codsanaynaa inagoo ku hadlaya afkiisa sportiga saabsadayga mudan inuu ku-xigeenkiisa u shaqeeya inay aad iyo aad nooga soo caawiyaan waxaan kaloo mahadnaqayaa labadan TV ee yaalaaba naga gudbiya cabashooyinkayga sheegana oo noo gudbiya wixii xaqiiqda ah waxaan kaloo intaa ku darayaa maamulka degmada aan sanad ugu mahadnaqayo si noo shaqeeya saxaafadda oo aad iyo aad noo shaqeysa ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa qurba joogta degmada Ceelafweyn dhalatay inay aad iyo aad uga warhayaan dhalinyarta bahda sportiga iyo garoonka oo ay og yihiin muqaawin yahay gebi ahaantiiba